wararka maanta. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay korarka dilalka toogashada ah ee laga fulinayay Iiraan tan iyo bishii Maarso ee sanadkan. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Falka Turk ayaa sheegay in ugu yaraan 56 qof lagu dilay eedeymo la xiriira amniga qaranka tan iyo markii 19 bishii Maarso laga soo bilaabo, kuwaasi oo 27 kamid ah la xiriiriyay dibadbaxyadii bilowgii sanadkan ka dhacay Iiraan. Turk ayaa sheegay in ciqaabta dilka loo adeegsanayo cabsigelinta shacabka iyo aamusinta mucaaradka sida uu hadalka u dhigay. dowladda Iiraan ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in kumanaan qof ay dishay intii lagu jiray dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday ee bishii Janaayo ee sanadkan. dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo weli uu ka sii socdo cudurka Ebola ayaa wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo maanta gaaray waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo hay'adaha gargaarku ay sheegayaan in cudurka Ebola uu ku sii fidayo gobollo kala duwan weliba si xawaaro sare leh, iyadoo walaacuna uu kordhayo. Tedros ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Felix Tshisekedi iyo hay'adaha iskaashiga la leh WHO. waa booqashadiisii labaad tani markii cudurkan lagu dhawaaqay in uu ka dilaacay waddankaasi bartamihii bishii May ee aynu ka soo gudubnay. wasaaradda caafimaadka ee Congo ayaa waxay sheegaysaa in ilaa iyo Isniintii la diiwaan geliyay 3874 kiis oo la xaqiijiyay, waxaana la sheegayaa in cudurka ay u dhinteen 1751 qof, waxaana sidoo kale jira shaqaale caafimaad oo shaqo joojin u sameeyay sababo la xiriira xagga mushaaraadka. waa hagaag wararkaasna intaa aynu kaga gudubno aynu ku laabanno haatan warka dhanka Israa'iil la xiriira askarta dhimashada dhaawac oo ka soo gaaray waddankaasi Lubnaan xaggiisa koonfureed. wararka ayaa waxay sheegayaan in askartan miina ay kula qaraxday deegaanka Majdal Zone. war laga soo saaray dhanka militariga Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa in lagu eedeynayo ururka Xisbullah waa si hadalka loo yiri in uu ku xadgudbay xabad joojinta, waxaana ciidanka Israa'iil ay sheegeen inay si adag u bixin doonaan jawaab arrintan la xiriirta. ilaa iyo hadda lama oga tirada askarta dhaawacantay marka laga reebo in la sheegayo in askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacaba ay ku jiraan saraakiil, waxaana la sheegayaa cisbitaalka Rambab in loo soo qaaday askarta dhaawaca. wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waa hagaag daawadayaal, goordhow waxaan u gudbaynaa falanqeyn ku aadan xaaladaha colaadeed ee Iiraan iyo Mareykanka u dhexeeya iyo guud ahaanba bariga dhexe. sabarka hore aynu ku hakano qadar xayeysiina. dugsiga casriga ah ee Daarul Hijra Islamic Online waxa uu kugu bishaaranayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto Quraanka Kariimka, higaada iyo culumta shareecada, kama marna luqadda Carabiga iyo tarbiyadda awlaadda. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada kaga muuqda. qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer, kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya, hoos tagana bangiga caalamiga ah ee IBS. eBesa goob kasta iyo goor kasta. soo dhawaada mar kale daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan. weli waxaad si toos ah u daawanaysaan barnaamijka wararka maanta oo idinkaga imaanaya istuudiyaasheena koowaad iyo labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo weliba Telegram-ka, idinkoo warar degdeg ah, macluumaadyo kale iyo faalooyinka akhrisan kara oo ka heli kara bogaynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa hagaag aynu markan u tallaabno xagga xubinta u dambeysay barnaamijka ee falanqaynta iyo dhinaca mowlid.
mawlid waxaa muuqata in weli aan la gaarin heshiis rasmi ah oo ku aadan furitaanka marinbiyoodka hormuus oo khilaafyo ka taagan yihiin inkastoo Trump uu sheegayo in maanta amaba maalinta berrito ee Khamiista ah la furi doono marinkaasi. haddaba sidee wax u socdaan iyadoo ay dhinaca kalena Iiraan ka soo baxayaan war burinaya warka Trump? نوع هذا أنتين أجنه ورك وحي شيئا إن عمان يا إيران وهذا لذا الصعدة بقول كيف اللحدا يسفهم لجا جاري أنا ورك أي شيئا إلا سماين دونه لبوا وظيقة ومراكبته أي كجد بعد طبعا سيدي عينه كشة جناي ورك يجي يقول دبي وظيقة مريسة رنك السرع قريرد هل كان إنه جم موقته بيها ودن كإيران waxay noqon doonaan halkaas inay maraan maraakiibta soo galaysa marinka Hormuz arintan qobrada waxay ku macnaynaysaa arin la xiriirta xagga amniga waayo Iiraan ma doonayso maraakiibtan Mareykanka ee dagaalka ee gaaf wareegaysa biyaha gobolka bariga dhexe inay ka soo gudbaan marinka Hormuz isla markaasna ay yimaadaan dhankan gacanka Persia gaar ahaan saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay wadanka Kuwait iyo sidoo kale wadanka Bahrain iyo wadanka Qatar waxaana markaasi muuqanaysa Iiraan inay arintan u sameynayso sababo xagga ammaanka ah qaybtan hoose ee biyabadeedka Oman oo Mareykanku ka soo laabanaya ama ka soo godanayo waxaa mari doona maraakiibta ka baxaysa marinka Hormuz haddii ay noqon lahayd kuwa shidaalka iyo kuwa kale ee shixnadaha sida arrinka kale ee labada wadan ay isku afgarteen waa Oman iyo Iiraan wuxuu yahay arinta ah lacag in laga qaado maraakiibta waxa moodaa siiqada hadalka in la bedelay markii hore Iiraan waxay lahayd waxaynu ka qaadeynaa khidmad lacageed markab kasta oo gooshaya marinkan Hormuz laakiin hadda waxa laga dhigay khidmadda shaqada ama adeegga oo macnaheedu uu yahay in maraakiibta la siin doono dhabbe ammaan ah wadiiqooyinka halista ana iyo goobaha miinaysana laga ilaalin doono inta halkaas ay ka gudbayaan amnigooda la damaanad qaadayo waxa kale oo kamid ah xagga nadaafadda iyo miinasaarista iyo si guud ilaalinta deegaanka lacagtan in loo isticmaali doono sida ay leeyihiin ila wareedada u dhuun doona wadahadaladan imika socda wadahadaladu waa wadahadalo albaabadu ay xiran yihiin Mareykankana Iiraan waxay sheegtay inuusan wax shaqo ah uusan ku lahayn isla markaasna arintu ay tahay arin go'aankeeda iska leeyihiin labadan wadan iska leh biyaha oo mara marinka Hormuz waa Oman iyo sidoo kale wadanka Iiraan arinta marka waxa moodaa Mareykanku inuu ku soo gambanayo dhankan Oman oo ama qodobaha u soo dhiibo ama ha yiraahdo Iiraan sidaasna ka diida sidaasna ka ogolaada laakiin Oman waxa lagu yaqaanaa dad ku wanaagsan wada xaajoodka waana wadan aan la mid ahayn wadamada kale ee Carabta ee lagu tilmaamo si hadalka loo dhigo inay hadiyo goor u dhagan nugul yihiin Mareykanka Oman iyadoo wadan tabar yar ah oo hub iyo ciidan fara badan aan lahayn ay mararka badan waxay sheegtay ama marar badan waxay soo jeedisay xaaladan inay ku xiran tahay diblomaasiyad oo military xalka uusan ahayn waana wadanka kaliya ee Carbeed ee xiriirka ugu dhow la leh Iiraan ma ahan oo kaliya inay wadaagaan biyaha badda ee marinka Hormuz laakiin siyaabo kale ay xiriir fiican u lahaayeen inkastoo Mareykanku isku dayay gacanta inuu maroojiyo oo laba jeer xitaa uu hanjabay Oman oo marka mid uu yiri waa duqeynana laakiin haddana si xeeladaysan ayay u xeeladaysteen taasi oo markaa keentay hadda in adduunyadii oo dhan ayagoo mas'uul ay ka yihiin oo ay doonayaan Mareykan in la furo iyagoo la xaajoonaya Iiraan waayo Iiraan waxay ku dhigan tahay Mareykan haddii anagu aan yeelan go'aanka ugu dambeeya ma ogolaan doono in la furo taasa marka waxay noqonaysaa arin meesha ku jirta marka waxa moodaa in hadda Oman iyo Iiraan ay isfahmeen xaggi dhaqaalaha habka loo maamulayo Mareyka wadada la sameyn doono maraakiibta ay ka gudbayso laakiin mushkiladda jirta waxay tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan arintan indhaha ka eeganayn oo had iyo goor hadlaya waana sababta Iiraaniyiintu ay u diidan yihiin hadaladiisa inay u hoggaansamaan horey wuxuu u sheegay maalinta Talaadada ahayd oo shalay ahayd inay tahay maalinta Iiraan uu qabanayo marinka Hormuz inay furto Iiraan dhag jala qoma siin warkaasi waa naga tabinaynay shalay haddana wuxuu leeyahay
maanta mise berri baa la furi doonaa iiraaniyiintu marka iyagoo xitaa heshiiskii gaaray cumaan waxaa laga yaabaa inay ku xumaynayaan Trump oo ay u muujinayaan isagu inuusan lahayn go'aanka lagu furayo Maraykanka Hormuus oo iyagu ay leeyihiin goorta la xirayo iyo goorta la furayo waxa kaloo laga yaabaa meesha inay ku jirto waayahay Iiraan markay ogolaato Maraykanka Hormuus in la furo maxaa dhici doona maraakiibtii Iiraan ma la celin doonaa dekedaha Iiraan ma la furi doonaa haddii marka aan heshiis laga gaarin arrintaasi ma soconaysa ayaa la leeyahay in Maraykanka sidiisa caadiga uu ku soo laabto waayo haddii Iiraan ay ogolaato in la furo oo maraakiibta kale ay ka gudubto laakiin kuweedii aysan ka gudbi karin dekedaheedina xanibad ay saaran tahay oo xitaa haddii raashin iyo waxyaabaha daruuriga ah waddanka ay u socdaan la damco in laga dejiyo dekedaha Iiraan oo la diido Iiraan markaas ma jirta sabab ay ku ogolaanayso in Maraykan uu furnaado marka macnaheedu waxa weeye dekedaha oo wada xirnaan doonaan Maraykankuna cid walba ayuu furnaan doonaa ama cid walba ayuu ka xirnaan doonaa qodobada marka ugu adag waa qodobadaasi inkastoo arrinka lacagta Iiraan ay qaadaysana Israa'iil dhankeeda aad looga soo horjeeda oo la leeyahay lacagtan waa lacag aad u fara badan waxa laga hadlayaa $100,000 maalintii haddii marka Iiraan lacagtaasi ay hesho Israa'iil waxay ku andacoonaysaa inay u adeegsanayso waa si hadalka u dhigtay arrimaha militariga in lagu xoojinayo ciidamada IRGC taa laftigeeda waa dood haysata madaxweynaha Maraykanka Donald Trump laakiin sida muuqata Trump wuxuu doonayaa in heshiis meesha waayahay mawlid haddii Maraykanku uusan haddaba ka qayb ahayn heshiiskani sida Iiraan ay ku andacoonayso ama ay sheegayso maxay tahay sababta Trump uu u leeyahay oo ugu soo celcelinayaa waxaan la leenahay Iiraan wada hadallo soconaya isla markaana horumar muuqda ka soo baxayaan arrintan waxaa lagu mataalay qof aad ku leedahay waa ku aqaan oo isna ku leeyahay kuma aqaan xagee u dhaafaysaa meel loo dhaafa marka male madaxweynaha Maraykanka marka wuxuu ku celcelinayaa Iiraan wada hadallo ayaanu la leenahay laakiin Iiraaniintu waxay leeyihiin anagu Iiraan la hadli mayso Maraykanka anagu waxaan la hadlaynaa Cumaan oo dan naga dhaxayso Maraykan Hormuusna inaga ayaa mas'uuliyadiisa iska leh marka Maraykanka raalli baad naga ahaanaysaa laakiin madaxweynihii Maraykanka xogiyihiisa amuraha dibadda xogiyihiisa maaliyadda cid walba waxay leedahay Iiraan baa wada hadal kula jirna marka Trump sheekadii xalay wuu bedelay waraysi buu siiyay Fox News wuxuu leeyahay Iiraaniyiintu wada hadal bay inala leeyihiin laakiin way beeninayaan oo ma qiranayaan wuxuu kaloo xitaa waraysiga ku yiri dabcan saakaynu soo gudbina barnaamijka xulashada wuxuu ku leeyahay Iiraan baa isoo wacday markaas waxay tiri waxaan kaa codsanaynaa inaad naga joojiso duqaynta aynu wada hadalno anna waxaan ku yiri waaya arrintan soo afjarno aynu wada hadalno laakiin isla markiiba waynu maqlaynaa xildhibaanka baarlamaanka Iiraan ka tirsan inta uu u tiriyay inta jeer uu yiri dagaalkan waa ku guuleysanay inta jeer uu yiri Maraykanka Hormuusna waa furan yahay inta uu u soo tiriyay marka macnaheedu waxa weeye war la qaba xiisa ma leh si kastoo Maraykanku u yiraahdo Iiraan ma la hadlaynaa Iiraan mowqifkeeda waa cad yahay waxay taagan tahay Maraykanka hadii la doonayo inuu furmo annagana aan ka faa'iideysano dagaalkan hal la joojiyo waayo